mayo cali ibraahim waa mid kamid ah muqayiliinta magaalada muqdisho sida joogtaha qaadka ugu cunayay 30 sano ee la soo dhaafay wuxuuna kaga duwan yahay qaad cunayaasha kale inuu cunida qaadka u isticmaalo qudaar kala duwan iyo cabida shidaalka naftada mayo aan kula kulmo magaalada muqdisho ayaa iiga sheekay cunida qaadka iyo sida ay isaga uga baxdo inuu u qaylo iyo waxyaabaha kale ee ku dhaliyay oo dad badan ay la yaaban yihiin si aan arinta ugu xaqiijino bulshada ula wadaagna ayaan kaamirada la daba galnay xilli uu suuqa ka iibsanaya qaadka wuxuuna sidoo kale iibsaday in ka yar nus litir nafta ah qarfa iyo heel joos lagu daray shidni uu ka sameeyay basbaas ceeriin ah mayo cali ibraahim ayaa ugu dambeyntii nageeyay goobta uu kaga qaylo magaalada muqdisho wuxuuna wareysiga u dhacay sidaani kulanti wacan oo wanaagsan dhamaanba akhyaarta hawada naga daawanaysay kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno qaar kamid ah muqayiliinta magaalada muqdisho oo noo soo bandhigay ama la yimid fikrado ka duwan sidii hore waxa la yiri amrigaaga raagageel dhalaa ayaa ku tusaya maanta mayo cali ibraahim ayaan ku soo qaadinaa barnaamijka oo martino ah waxaadna ka daawan kartaan curubafilms.com iyo muqdishofilms.com kuna soo dhawaada isagii oo aan wareysi la yaabano bal waxaad nooga warantaa mayo cali ibraahim habka iyo magaalada waxaad kaga duwan tahay muqayiliinta kale muqayiliinta sidoodaba habka aniga u isticmaalaan aniga waxaan u isticmaalayaa waa tan waa nafto baasha waa nafto baashana waa basbaas qalfi heel iyo joos isku daray waaye ya aye antan shidna ay ku jirto kana waa qaad intaasaan aan isticmaalaa waayahay mayo cali ibraahim adiga oo mahadsan sigaarna waa ku dartaa soo maahan bal hadda bilow sidii qaadkii iyo aad u cun lahayd adigoo maaragtay na tusayo mid walba sidaad u isticmaalaysid marka hore maxaad ka bilowdaa marka hore waxaan ku bilaabaa naftada haye aan ku bilaabaa marka labaadna waxaan ku hijiyaa oo naftada cabaysaa miya marka maxaa ka dareemaysaa markaa cabtid makaanka oo daroogada caadiga haye marka dhanaan miya maqabow miya kuleel miya macaan waaye haye makaanka bas oo ku siisaa ma ku jira dadka qaylay baraf iyo waxba iskaga qaboojiyaanay maya haye sideeda ku cabaysaa sideeda caadiga ku cabaya qabow haye maxaad kala ku dartaa waxaan ku daraa qalfi heel joos iyo shidno oo isku qasan basbaas isku qasan haye sad yeelaysaa markaa ayagana waan saan ugu kaboodaa marka qaadka cunaya maxaa ka dareemaysaa markaa waxaan ka dareemayaa hole abstraction oo beel ah marka adiga dhakhtar miyaa kuu qoro waxaan inaad sidaa u samaashid maya haye fikradeydan ka hele yaa kugu dhiirigeliyay inaad cabtid maskaxdayda cabtid basbaas iyo toon iyo xawaaji la isku daray iyo nafto goormaad ka bilowday waxaan bilaabay 89 inta wax dhibaato ma kala kulanta aad cabaysa naftada maya haye wax dhibaato ma kala kulmay marka inta hadda aad cabtay maxaad ku xijinaysaa qaadan ku xijinaa natusada hakaas waa qaad nifanti kana waa shidno oo caadi ah basbaas oo caadi ah oo shidno lagu suubiyay waa ku saacsan saasan ugu daway xijinaya basbaas cunaysa marka haye alxamdulillah maxaad dareentay markaa waxaan dareemay maskax beel ah malaha dadka waa cun leeda umaleynaa hilibka ma cuntaa hilibka dadka ma cuntaa hilibka ma cuno haye laakiin qaadkas baan cunaa jaadka haddii la joojiyo maxaad dareemaysaa marka maalmihii jaadka la joojiyo maalmihii jaadka oo la joojiyo jaalan caleentis intaan soo gudbistay asan tumi qalfi heel joos waxba laga yar iyo waxaas isku daray waa filtreystay dalan ku shubtay haye daladaasaan aniga aan ka buuxay dabkan saaray haye dabka markiisa aan karkariya sukuran ku daray sukurma aan ku daray haddana filter lamaada u eelshay qajacla weyn ay isoo baxay haye inta jaadka laga keenay qajaclahaasa aan bikiir yar aan u kaboonayo marka kan maxaa ku miirtaa markaa kan maxaa ku miiraysaa waxaan ku miirayaa kan shaandho waaye haye
wasaqda aan ka saaraa biyo afirtalaysan aan abaa marka aad tuntid oo aad ku tuntid mooygan ay kashaan ay kashay mooga soo kuma tumaysa kashay moogan aan ku tuma kadibna hawa biyan ku shibaa waa ku filtreynaya qashinkan ka saaraa marka adoon tumin ma cuni kartaa basbaaska waa kana anigoo asagoo oo la tuman waa kaso waa ijeedin waxa dareemaysa marqaan dareemaysa waxa la dareemay marqaan leeyahay wax kanu marqaanka weyn maxaa ka heshaa marka marqaan waa ka weynta arintan arin ya aniga muqayyilka looga talagalay waaye marqaan marka intaan qaaday iyo intaan alaabtan aad soo qaadatay imise saacadood fadhinaysa ilaa waxaan fadhinayaa ilaa 9 habeenimo 10 habeenimo aan fadhinayaa kadib ma seexanaysaa marka mise hurdo ma jirto ilaa goorma soo jeedaysaa ilaa inta soo jeedaysaa ilaa adi 24 saac waa soo jeedaysaa xaas ma leedahay iyo caruur xaaska ma hurdaada mise soo jeedaysaa ayada xaas waa isku fasaa waqti hurdo la 24 saac habeenkaas shaqo ma jirto maya waa fasaxaya xaaska kuguma xanaaqdamaya marka ayada marka maya ma ku xanaaq maxaa dareemaysaa marka jaadkan iyo aad cuntid basbaaskan tuuntan iyo xawaajiga iyo shidniga la isku daray iyo naftada markaad ku kabatid maxaa dareemaysaa maqaan iyo maskax aan degsanaya ma jiraan marka magaalada dad sidaadoo kale oo aad xiriir leedihiin oo cuno basbaaska iyo shidniga iyo tuunta iyo naftada ku cuno jaadka maya liga helaa see ku soo aliftay marka adiga ani arintan waxaan ku soo aliftay أنا بالجمونتا وأنا قبض أمواي أنا شكرا بس كأمران سلاي وحب بس كنت أقدر مركي بيجي أسكت أقدرنا وحنا إسوس سيدين مرقان كان كهلي مرقان كان ومتحد دافه yaa fiican inaadan cunin ku cunin basbaas iyo shin iyo naftada oo aad jaadka kaligiis cunto inaad ku cuntid alaabtan yaa ku fiican jaad ma ibaxay badana waxaan ku cuno basbaas la'aan iyo toon iyo xawaaji la'aan iyo nafta la'aan ma ku baxayo marka saasa ku dooratay in maarta uu ku baxo marka dadka aan ku cunin naftada iyo shiniga iyo basbaaska oo caadi u cuno jaad kaligood wali maskaxdooda waa maxaa kaga duwantaa adiga wali waa dhamantahay maskaxdooda wali waa dhamantahay heer kale ma gaarin marqaanka heer kale ma gaarin maxaa ugu baaqaysa marka ayaga waxaan ugu baaqayaa marqaan ninkii rabo alaabtan ha samaysto alaabta maxaa kamid ii sheeg bal waa tuun iyo habaash basbaas قلبي هل يجوز الصدرة قلبي أنتاس يو نفط يوشنا هذه أنتاس الصدرة هذه أكأوسن بس إيرين كيس أو دان أنكم تبدره بس إيرين وقفك أنت صدق صدق جات كونا هذا كو حنون صدق يا أخي جواب سؤال مسؤول كمية مركا يا هذا قف كو حنون صدق ما حنون صناعي هذا ما دوانا قايسة مركا عفمت كيس أنا أنت إلا سديدن سقاط ما كان أنا صور إلى هلا صور هذا كان صور أنا هنوصل ولا دت أسي سمجرها أنت أنا أكون مرتقد ما dad aan si waajira la way gidideen ma iga ka dhigin sada u diiday iga gidideen hadda saaxibada haday ku yimaado intaan haysto ay ku dhahay wax naga sii ma siinaysa mise u diiday diyaar u tahay inaan si diyaar waxaan ku weydiiyay intaan hadii aad cunto jaadka imisaad moogaan kartaa marka maalin kasta inaan cunto baa maalin kasta inaan inta cunto rabtaa hadda helaysid hadda filayn marka ilaa 89 sidaan aad cunaysaa ما هو يسمرنا مرة حتى يعني جاتك الإليو على تسنتومنا يا أنت بسارة يا جوس لجيري وحسن قدرة يقل في هيل وبدبد السنة يا وفي ترينا قد على وين كسبتها قد علىها أتكاكوش بيا روكا مرك عدم حكش غيسا باور تسنقة باور تنقداميها هدي باور نقد ويدين حكش غيسا هذا باور نقول أنا بايو فرصة كلا متقن فرصة كلا ما هوش كلا إصابة هذا عن قبضها بقول سنبوش دوا وعقانا لا خمسة درجة هذا بقول يا السوق جين كذا كبس كذا وعقانا بقول سنبوش أدب تجار ما هو دمس
waxaa igu dambeysay siyaad barjuugi kadib ma taaban maya haye siyaad barjuugi igu dambeysay marka hadda maxaad damacsantahay hawshan inaad sii wadid oo qarfaya iyo heelka iyo jooska iyo basbaaska iyo naftada aad jaadka ku cuntaa mise inaad joojisaa damacsantahay haddaan shaqo bixilo waxaan waa inaan iska qasradaba ma ku qorshaysantaa marka inaad goorma joojinaysaa waqti shaqo hadda bixilaan ku dhaca shaqo haddaa heshid hadda shaqo la'aanta kugu kalifaysa miya shaqo la'aanta ugu qofkaysa haye haddaad shaqay lahayd mashquulan ahay maba waxaan waa maba xasuusan lahaynbo marka haddaad shaqo heli lahayd waa iska diin lahayd sooma waa tahay daawadayaal barnaamijkeeni aan jaad kaga hadlaynay iyo arrintan cusub ee aad wada daawanaysaan xagga kaamirada waxaa iga saaciday injineer cabdifataax fadka oo la yaaban arrintan mucjisada nagu noqotay dhammaan waxaan idinkugu baaqaynaa in aadan la yaabin oo arrimo kale oo fara badan ay jiraan wixii hadda ka dambeeyeen aan maalin walba maalinta ka dambaysa aan sidaa idinkugu soo gudbi doono wixii ka soo kordho magaalada muqdisho ayaan idinkala hadlaynaa halkaa ayaan ku soo koobaynaa inta aan dib dambe hawada aan ku kulmi doono waa sidaa iyo nabad